بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد ولا لها إداوانيا أما إداقيسنا يميلك السؤال جوكتان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحان إن شاء الله تعالى هل كنكبل لابينا حلقة دي لبات حول مالميتكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم عنوانكو حول مالميتكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيكو صلى الله عليه وسلم مالين كيسو قاب كيب وقادن جري مالين كيسو مالين نوعاب وها محوق قبسن جري شقدا أتهالي محي أهيد وحولا نباهنا هاي إن ندلو استاقنو runtii wax badanna ka fahanno maxaa yeelay waa dayashadeennii waa uswadeennii aan ku dayan lahayn arrimaheenna adduun iyo arrimaheenna aakhiro duruus badan ayaan kala dhex bixi doonnaa nebiga calayhi salaatu wassalaam habeenkiisu habeen cibaado ah waan u tegi doonnaa laakiin hadda waxaan rabnaa inaan maalinkii iyo waagii iftiinkiisa aan ka bilowno xalaqadan labaad marka cinwaankeeda gaarka ahi wuxuu noqon doonaa waa beriga waaga marka uu bariya nebiga calayhi salaatu wassalaam waa beri caynkee ayuu ahaa maalinku marka uu iftiimo oo iftiinkiisa uu kownka ku camimo wejiga nebiga calayhi salaatu wassalaam nuurkiisana kownka ayuu camimayay hidaayada iyo hanuunka iyo iftiinka uu dadka u gudbinayo waaga marka uu dilaaco bilaal ayaa adaanka ku dhufan jiray sida axaadiista ku cad ina bilaalan yu'adinu bilaylin fakuluu washrabuu xataa yu'adina ibna ummi maktuum habeenkii yacni fajarka aadaanka hore bilaal baa iska lahaa aadaanka dambena ibni ummi maktuum cabdillaahi ibni ummi maktuum ayaa addimi jiray nin indhooluu ahaa ma addimi jirin ilaa lagu yidhaahdo waagii waa baryey markaas ayuu addimi jiray laakiin bilaal habeennimo aadaanka hore ayuu addimi jiray aadaanka hore marka lagu dhufto wuxuu ku soo beegmi jiray wakhti nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhinaca dhulka dhigay isagoo markaa ka nasanaya daalkii iyo soo jeedkii dheeraa uu ku soo jeedayay qiyaamu leylka ayuu waxoogaha ka nasanaya oo dhinaca ayuu dhulka dhigaya mar alle markuu aadaankaa dhacana indhaha ayuu kala qaadaya waa toosi jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh mar alle marka uu toosana waxa ugu horeeya uu ku bilaabo wuxuu ahaan jiray cadaysi ayuu ahaan jiray yastaaku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh wuu rumayan jiray ilkihiisa ayuu nadiifin jiray kadibna ducadii uu dadka baray oo in lagu ducaysto hurdada marka laga kaco oo ahayd alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay mahadoo dhan u sugnaatay ilaahay ayay mahadoo dhan u sugnaatay ina nooleeyey bacdamaa u ina dilay bacdamaa amaatana noqodka iyo isi soo saaritaankuna xaggiisa ayuu noqon doonaa wa ilayhi nushuur lianna hurdada walaalayaal waxaa la yidhaahdaa waa almowtata asuqra waa geeridii yarayd qofku waa dhimanaya ومن هنا الله عز وجل القرآن كتل مامي وهو الذي يتوفاكم بالليل الله ومتك إذن أفصنا إذن دلي هبينك مركيت هاي آياتك لو كتل مامي الله عز وجل إنه يريه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى رب سبحانه وتعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى آيات باللغة وحيد الله يتوفى الأنفس alle nafafka ayuu oofsanaya xiina mowtiha culimmada waxay ku fasireen mufasiriinta qaar badan oo ka mid ah marka ay huruddo midda aan hurdada ku dhimanin oo ileen nafba intay seexato hurdadaasi ku nafbaxays qaarna waa ka kacayaanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka kicinaya qaarka ka kaca marka ilaahay wuxuu u sameeyey madal iyo ajal wayursilu lukhra ilaa ajalin musama idan wax ilaahay looga mahadnaqa weeye in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maxaa la yidhaahdaa uu ina nooleeye bacdamaa aan dhimanay hurdadaasna aan ku dhimanay idan waa ducaysan jiray nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo markaa ku ducaysanaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku mahadsan yahay noolaynta uu nooleeyey alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushuur kadib waxaa dhici jira walaalayaal aadaanka ayuu ajiibi jiray sida dhaqanka u ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddiisana uu ku tarbiyeeyey ilan aadaanku markuu socdo waxa uu mu'adinku dhahayaa la rabaa in laga daba qaado allahu akbar inaad ka dabatir ashhadu an laa ilaaha ila allah haakada ilaa marka la soo gaaro xaya cala asalaati xaya cala alfalaax wuxuu oran jiray laa xawla walaa quwata
إلا بالله. طيب إلى مركا نبي عليه الصلاة والسلام ومحل يرهدا مركي أدنك ولا ماضو وحو أخرين جري دعاء وضدك وبري اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ومعناه ذويتاي الله يريتان كان يدعودا اسكله دعودا وكلمة التوحيد اللهم رب هذه الدعوة دعودا يريتان كان ومد ما يسرنا التامة إلا كلمة التوحيد وكلمة ما يسرون أذانك توحيد كسكه الله. والصلاة القائمة صلاة للسجير الله اسكله وحدث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة وحدث وسيلة وميل أي سندتك جاري كرين أو جارة يدرجه فضيلنا سي ميل سريسو ومكان عالية وماشي إلهي سبحانه وتعالى ويري عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آتي محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إله ماشي أد ugu talaga shay oo ad u yaboohday oo meeshii waxa weeyay la mahdinayo halka ku soo saar oo meesha waxa weey shafaacadii weyneed markay dhacayso ummadan u shafaaca qaaday. inta markay dhacdo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam hadii uu qabays u baahan yahayna uu qabaysan jiray hadii uu weysaqaad u baahan yahayna uu weysaysan jiray hadba xaaladda uu ku sugan yahay ay ku xirnaan jirtay. waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in uu salaada u istaaga ama uu kaco isagoo aanan markaa weyse qaadanin caaishana uu ku oran jiray yaa caaisha ina caynaya tanaamaani walaa yanaamu qalbi caaishoy labadayda indhood unbaa seexan laakiin qalbigaygu isagu ma hurdo oo ma seexdo. kadib nabigu wuxuu samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu tukado laba ragco oo labada ragcee salaada fajr ka horeysa ee uu ku tilmaamay khayrun min addunya wamaa fiiha adduunyada iyo waxa ku jira iyada ka khayr badan labadaas ragcadood ka khayr badan labadaas ragcadood oo fudfudud ayuu tukan jiray mana beerdareen jirin haddii uu joogo iyo hadduu safar yahayba aad ayuu ugu dadaali jiray salawaatullahi wasalaamuhu calayh. labada ragcadood wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda hore قل يا أيها الكافرون أيكو أخرين جري رقعدة كوات رقعدة لبادنا قل هو الله أحد سورة الإخلاص أيكو أخرين جري مررك قاركود وحديع جرتين وأخري رقعدة كوات قولوا آمنا بالله آيات داس رقعدة لبادنا إنو كو أخري قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا مررك قاركود وحو أخرين جري فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله يا آياتها لمتكأ markuu labada ragcadood uu tukado dhameeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu la sheekaysan jiray xaasaskiisa hadba midda uu la joogo ama se hadii ay soo jeedo hadaysan soo jeedinna dhinaca midige ayuu dhulka dhigi jiray waxoogaha yar istiraaxa yar oo nasiina ayuu dhinaca dhulka dhigi jiray kaanama inuu seexanayo aad moodo waana sunno oo in markii salaada labada ragcadood ee ka horeysa la tukado inuu qofku dhinaciisa midige uu dhulka dhigo. Bilal radiyallahu anhu markii uu arko dadkii inay masaajidka soo urureen oo masaajidkii la yimaaday jamaacadina ay xaadir tahay in la aqimo say dhiman tahay waxa uu sameyn jiray waxay ahayd inuu nabiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dhihi jiray ama uu kula hadli jiray fanaada isagoo dhawaaqaya as-salaata ya rasuul allah nabi allah sallallahu alayhi wasallam salaadii waa la gaaray waqtigeedii way taagan tahay. halkaasi markii uu nabiga uu maqlo gurigiisu ka soo bixi jiray isagoo marka oranaya ducada in guriyaha marka laga baxay duca la akhrin jiray bismillaah tawakkaltu ala allah magaca ilaahi baan ku baxaya allah aan tala saartay allahumma inni a'udhu bika an adilla aw dalla ilaahu waxaan ka magan galaya inaan lumo ama liilumiyo inaan simbiri raxdo ama liisimbiri rixiyo inaan maxal ila wax dulmiyo ku gardaroodo aniga ama liigu gardaroodo inaan wax ku jaahilnimo sameeyo ama aniga in liigu jaahilnimo sameeyo. hadaad eegto qofku wuxuu ilaahay ka magan galaya calaaqadiisi rabbi ula laha inuu ka lumo waa maxay waa waxa loo yaqaan baadida ama simbir raxashada an adilla aw azilla wuxuu ilaahay ka magan galaya meelaha iibkiisa iyo dadka mucaamalaadka uu la leeyahay oo ganacsiga ama shaqooyinka uu joogo inuu isaga dulm uu sameeyo ama la dulmiyo ayuu ilaahay ka magan galaya. maalinka taas ayaa lagu bilaabanaya wuxuu ilaahay ka magan galaya asxaabta iyo dadka zumalada ee hadba ay isku dhex jiraan in ama isaga uu gardaroodo ama isaga lagu gardaroodo ayuu ilaahay ka magan gali jiray. sida ayuu oran jiray markaasuu masaajidka aadi jiray. masjidka marka uu galana ducadii masjidka ayuu akhrin jiray bismillaah wassalaatu calaa rasuulillaah
magaca ilaahay aan ku bilaabay nabigana waa lagu salinaya sal ly slam allahuma اغfir lii dunuubi ilaahu dembiyadayda ii dhaaf وافتح لي أبواب رحمتك إردهنا حديثنا إله إيبلق أيكو بالله منجري أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم إلهي من وحوي الله وين أيام مجنجلية وجهي سكريم شرفت بدن أيام مجنجلية سلطان كيس يودي سي بقرطو يدي سا ولقد هريسي أيام مجنجلية وحنا كم مجنجلية من الشيطان الرجيم دعوين كاسي أيكو دعي سنجري اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم إني أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دعاء سيان معنيني أيكو دعي سنجري مرة لمركع بلال وأركو مساجد كأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أيو أقيم جري saxaabaduna markay arkaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo soo socdana horay ka istaagi jireen oo salaada ayay u kici jireen halka marka waxaan ka qaadanaynaa darsi cajiib badan oo ah in imaamku muadinka in la rabo inuu imaamka u tago oo as-salaata salaadii wala gaaray inuu ku yiraahdo ayaa la doonaya oo xasuusiyo inuusan iska aqimin ilaa uu arko imaamkii oo soo galaya masaajidka ama qolkiisii ama iridii masaajidka ka soo galaya waxa kada dadkuna sidoo kale bimujarrad imaamku markay arkaan inay kacaan walow salaadiba yaan la aqimin sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam asaas ay ahayd waxa dhici jirta mararka qaarkood nabiga inuu ku soo baxo isaga oo madaxiisu ay biyo ka tifqayaan yaani markaas isagoo markaas soo qabaysay oo janaabo ka soo qabaysay xaraj iyo culaysna umuusan arki jirin salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wahakada walaalayaal waa barigii nabiga alayhi salatu wasalaam sida quruxda badan ayuu ugu bari jiray waaga isaga oo markaas adaan iyo salaad iyo dhikri iyo duco iyo maxaa la yiraahdaa ku bilaabanaya waliba توحيدك iyo kalimatu tawxiid celcelinaya salaadaha uu tukanayana qul ya ayuha alkaafiruun tawxiid ka hadlaysa iyo suuratul ikhlaas qul huwallahu ahad oo ka hadlaysa tawxiid ayuu ku bilaaban jiray isagoo mar walba cusboonaysiinaya tawxiidkii waxa weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala caabuditaankiisa ummadana sidaas si lamida ayaa laga doonayaa inay ku bilaabato maalinkeedii maalin sida u eg oo u qurux badan oo duco iyo tawxiid iyo nashaad iyo firfircooni ku dhisan waxaan u tagi doonaa hadduu rabbi idmo ka wuxuu ahaa waa barigii maalinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xalaqaadka xigana ayaan u tagi doonaa inta ayaa naftayda iyo tiinaba u dardaarmaya inaad ku waxa weeye dayataan nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahi subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigta kuwii ku daydo kuwii la noqdo jannada rafiiq kula noqdo hada wallahu aclam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad